waxa hadda ka dambeeya awal waxba la dhowrayay waxba la dhowri maayo gobolkana waxa lagu soo duulay laftiisa laakiin waa la difaacay dhakada laga tooganaya wixii nabadgelyada ummadda iyo nimcada iyo barwaaqada ka duminaya kale isugu yimid waxay ahayd in aynu samayno barowadii tii u dambaysay ama tii ka horeysay iyadoo kaabiga nagu soo hayso sanad guuradii 18 May salaantii waa la maray nabadgelyadan wax yar ka oranaya ciidankuna waa diyaar nabadgelyada iyo salaanta labadaba uu ka badbadan yahay gobolkana waxa lagu soo duulay laftiisa laakiin waa la difaacay wax baxsaday iyo wax xidhanna way jiraan waxa hadda ka dambeeya awal waxba la dhowrayay waxba la dhowri maayo dhakada laga tooganaya wixii nabadgelyada ummadda iyo nimcada iyo barwaaqada ka duminaya indhaha laga laaban maayo waxaynu joognaa xaruntii Goray Cawleed waxaan kormeer ku soo marnay ciidamada halkan tababarka ku qaadanayay oo 18 May u diyaar garoobaya farxad bay noo tahay inaanu aragno ciidan haybad iyo kala dambeyn iyo nidaam ay ka muuqato oo u diyaara difaacidda qarankooga una diyaar garoobay maanta maadaama 18 May ay naga xigto maanta iyo bari toole inay soo bandhigaan nidaamkooga iyo sida ay salaanta u bixinayaan waxa sharaf noo ah inaanu kala soo qayb galno oo aanu aragno ciidan si fiican loo carbiyay oo u diyaara inay fuliyaan dhammaan awaamirta ciidannimo waxaan ku faraxsanahay maadaama dawladdu ay tahay haykalka ciidanku yahay dawladnimada inaanu ka soo qayb galno oo aanu aragno ciidankaasi sida uu isku dubadhacsan yahay ee ay diyaarka ugu yihiin 18 May dhammaan bulshooyinka reer Booramana waxaan ugu baaqaynaa in 18 May ay naga xigto bariyo kaliya taasi darteedna la soo bandhigi doono dhammaan shacairtii muujinayay qarannimada dalkan markii uu qaatay oo ay ka soo wareegtay 32 sanadood si weyn baa insha Allah loo xusi doonaa diyaar garowga 18 May sanad guuradii 32aad sanad walba wuxuu baa ku sii kordhaya sanadkan aad iyo aad baan ugu qushuunay ciidankan jooga goobtan Goray Cawl oo barkii tababarkiisu cusbaaba oo waxaan bil gaarin ay ku jireen haddana aad arkayso heerka ay gaarsiisan tahay waa diyaar garowga ciidannimo ee aynu leenahay waxaan filayaa kaalintooda ciidanku way muujiyeen waxay nagu haray qododeena maryaha cad leh marya calasta leedahay shicibka militarigu barbar uu nagu caay jiro shicibku dhalibay nool jireeno way yaanu ka yar hoosanay arki jireen oo inaga yar adagyiin waxa la inooga baahan yahay inagana taa ay muujiyeen mid u dhiganta inaynu muujino shacairka 18 May soo bandhigno magaalada Booramo dhamuu diyaar garoodo gobolka oo dhamuu diyaar garoobo insha Allah waxaan rajaynayaa kaalinta aynu sanadkii hore galay inaynu ka sarreeyno mooyaane inaan ka hoosay